حديث كان مركب وحربنا إن وحر دول استاجنو لفظ كان تفلي ما دام مالين دويد وحد عي ننا محاضرة قبتي مركزو لفظ كان تفلي أي دول استاجي مركزو وحير لفظ كان وحتصنا رسولك إنه إنجر لها صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ووحي الله لقى ما قالوا مركا بل إن علماء وحي كيراهين لفظ قاس دور دقيقة عن كهذا النط تفلي رأسه marka ugu horeysa horta waxa muhiim ah in la ogaado shariicada xagee masdar u ah oo xagee laga qaadan kara markii la rabo sifaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam in la sugo ama tilmaamaha rasuulka kamida sallallahu alayhi wasallam in la sugo oo qof uu doonayo inuu yiraaho tilmaantaas rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam xagee masdar tashriic u ah xagee laga qaadan kara waxa jira cilmiga usul fiqhiga marka laga hadlaayo sheekhan la yiraaho imaam shaatibi oo saaxib al-usula sheekhan qaariga ma waa sheekhi usuliga aha shaadibi qawaa'idka culimada dhan ay isku waafaqsan yihiin qaacida kamid oo soo qaaday markaas wuxuu yiri man ya'khudhu al-adillata min atraf al-ibarati shar'iyya qofkii wuxuu yiri daliil ka qaata cibaara oo xagga sharciga ku soo aroortay kaligeed hal cibaaro dul istaag laakiin muqaarana ma uusan sameeyno adilla fara badan ma uusan baarin mana isbarbar dhigin qadiyadan ama mawduucan ama mas'aladan qofka uu ka hadlaayo inta ahadiis oo ku soo aroortay inta aayado ku soo aroortay aqwaalul ulama muqaarana kuma sameeyay hal cibaaro darafkeedu istaagay darafka yaani waxa weey waa cirifka geesu ka dul istaagay cibaaradii wala yanzuru ba'daha bi ba'd cibaaraadkii sharcigana qaarkeed uusan u fiirinayn uusan bandhigayno muqaarana uusan sameeynin wuxuu yiri shaadibi fayushiku an yazilla qofkaas waxa degdegayo dhow yiri inuu kufo oo simbirixdo waxa sharciga simbirixa ay ugu dhacdo haduu hal lafdi kaliya intuu dul istaago oo yiri halka lafdiyan waxaan ku sugaa xukun sharci ah ama halkaas lafdiyan waxaan ku sugaa sifo kamida tilmaamihii rasuulka sallallahu alayhi wasallam say lafdiga dul istaagaya oo muqaarana aan sameeynayno adillada kale aan isbarbar dhigaynin walaysa min sha'ni ar-rasikhin wuxuu yiri dadka raasikhiinta oo cilmiga ku xideystana sha'nigooda sidaas ma aha markay doonayaan xukun sharci inay qaataan muqaaranay sameeyaan adillada isbarbar dhigaan ولذلك الشاطبي سوى قاعدتي وتوحو يري فكان العضو الواحد لا يعدي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا وحير هل حبن أو حبنها شريعة أو ككوبنتها أو لدول استاغو هل كاس حبن لقما قادن كرو حكم شرعي لقما قادن كرو فمتبعه قفك هل كاس حكم راعنا ومقارنة أن كسمين أدلة كلا أن فيرين متبع متشابه وحو راعي متشابه أيو راعيه وحو كتغي وحياله اسكا عدايو محكم كاهايو واضحها وحي محكم كاهايو واضحها يو كتغي maxaa yeelay hal cibaaro sharciga ku soo aroortay buu dul istaagay ayadan xukun ka qaadanahay meeshii laga rabay muqaarano badan inuu sameeyo sidaas awgeed marka waxa laazim ah lafdigan taflii fahamkiisu wuxuu u baahan yahay muqaarana sharciya iyo muqaarana luqawiya labadaba in la helo markaas ka bacdi waxa nooga soo ifbixi kara xukunka xaqiiqadiisa inaan gaarno taas nooga soo ifbixi karto muqaaranada marka haddaan hormarino oo xagga sharciga taflii ra'sa rasuulkana sallallahu alayhi wasallam waxa la ogsoon yahay inta ilaahay uu abuuray subhanahu wa ta'ala qofka ugu uduga badnaa oo ugu carafta badnaa inuu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam ahadiis fara badan oo la soo koobi karin ayaana arrinka tusinaya waxa kamida xadiiskii imaam ahmed rahimahullahu ta'ala kitaabkiisa musnadkiisa uu ku warinayo min xadiisi Anas ibn Malik oo uu yiri Anas ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة عرف أن أقول ما أنا أرين أطيب كأذق بدن أو كوناك بدن من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت رسولك صلى الله عليه وسلم وهكذا سيداس وكلا إمام أحمد رحمه الله تعالى مسند كيس وكورنا خصوصية الشعر كرسولك صلى الله عليه وسلم إن أذق جارة أسكال هاجري تنت رسولك سجارة أي أود جرتي أو عرف جرتي وإمام أحمد بن مسند كيس كوريي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب رسول صلى الله عليه وسلم تنتي سنة آدي أبضنيد آدينا أدوك بدنيد
aad u caraf badan ma khusuusiyo gaar waxa ku soo aroortay shacarka iyo tinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam dib gaara in ilaahay uu sameeyay subhanahu wa ta'ala oo udug gaaraba ay lahaan jirtay waxa kale oo daarimi kitaabkiisa sunankiisa sidaas oo kale uu ku warin lam yasluk rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam tariiqan illa urifa annahu qad salakahu rasuulka sallallahu alayhi wasallam dariiq soo maro illa dariiq haduu soo maro waa la garan jiray oo waa la fahmi jiray dariiqaas inuu maray nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu soo maray waa likathrati raa'ihihi rasuulka sallallahu alayhi wasallam rawaaxidiisa iyo udugiisa iyo diibka ka soo karaaya caraftiisa awgeeda dariiqa dhan laga dareemi jiray oo calaamada astaan ay u ahaan jirtay inuu maray rasuulka sallallahu alayhi wasallam min diibi caraqihi rasuulka dhididkiisa diibkiisa awgiis ayaa wadadoo dhan ay soo udgi jirtay oo soo carfi jirtay taasi marka waxay tilmaamay yaani muqaaranada sharciga ah oo yaani inaysan u soo dhawaan karin ba rasuulka sallallahu alayhi wasallam injir iyo waxyaalo la mid ah inaysan ba u soo dhawaan karin maadaama tinta khusuusiyo gaara ilaahayba uu yeelay oo caraf gooniyaba tinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ahaan jirtay midda kale saxiix muslimka gudihiisa waxaa noogu iman doona gabadhan saxaabiyada haddaanu dul taaganahay nafsadeeda in rasuulka sallallahu alayhi wasallam gurigeeda intuu ku qaylowshaday dhididkiisii ay soo daliiqan jirtay oo qaruurad ay ku shuban jirtay oo ay dhihi jirtay yaa rasuulallahi najcaluhu fii diibina wa narjuu barakatahu udugan ka dhiganaynaa guryaha intaan dhididkaaga dhiganno ayaan marmarsanaynaa ay dhihi jirtay marka sidaasaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam jasadan wa shacaran wa ruuxan wuxuu ahaa adyaba dibka midka ugu uduga badan ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam baraka calayhi sidaas u ahaan jiray muqaaranada kale oo dabeecada bahasha nafteeda in la daraaseeyo waa muhiim bahashan injirta ah dabeecadaha iyo amaakinta ay ka dhalato kitaabkan la yiraaho al-xayawaan oo iska leeyahay jaahid sheekhan jaahid la yiraahdo wuxuu leeyahay al-qamlu yukhlaqu min araqi al-insan injirta waxa laga abuuraa uu leeyahay dhididka qofka bini aadamka ah wa wasakhi jildihi iyo maqaarkiisa oo wasakhooba labadaas ilaahay ka abuuraa subhanahu wa ta'ala baasha qamliga ah al-araq al-qamlu yukhlaqu min araqi al-insan wa wasakhi jildihi qamliga waxa laga abuuraa qofka bini aadamka ah dhididkiisa iyo wa wasakhi jildihi maqaarkiisa wasakhdu ku badatay ayaa laga abuuraa والقمل يعرض للإنسان إذا كثر وسخه والخموم قمله وحو كسو دريا قفك بن آدم كمركي وسخ دي سبادته خموم كيسنا أبطه خموم كوحلو لجيدا وشيرك الزائد كاه شيرك يسو مركو أد وحماده وسخ دي سنا أي بادته مركاسا طبيعة أهان بهاشنا اعتمادا انجرتا وهكذا جاهد كتاب كيسا الحيوان وكليهي وحليهي والقمل يسرع إلى الدجاج إذا لم يقسل قملك الدبيعة وحا كميد ولاية حتى بهاشن دجاجة الدورة ويقشاء هذه الدورة أن لدقين ونظافة أن لقود ذلك دورة نفتي هذا النظافة لقود ذلك وحي نغطات دورة قملي أو إنجير بدن أي نغن سلاس أوجد جاهد وحو انت اسكو سو دري وحو يري بهاشن قملك لبا سبب ميدكو إيمان كرتا سبب كان هذا أصول شيغي oo meel wasakh badan oo uraysa oo qarmoon in ilaahayba uu ka abuuro subhanahu wa ta'ala han noqoto xayawaanaadka kale ama qofka bini aadamka jirkiisa han noqoto sababka labaad ee ku iman karto qamliga waxa kamid uu leeyahay an yakuna al-insanu tabi'ata al-wasakh wal-qaml yaani qofka dabiica ahaanba inuu injir u dhashayba si kasto u qubaysto inuu injiro iska noqonayo lidalika markaas waxa la yiraahdo leeyahay fulanun طبيعي القمل يعني قملgu dabeecad u leeyahay oo dabeecadiisa ilaahay wuxuu abuuray haduu qubaysto xataa baashu inaysan ka hareynin oo noloshiisaba ay laazimayso marka waxa leeyahay waa qamil ninkaas injiroole uu labadaas marka arimood oo baashan dabeecadeeda ay ku timaado labadaba nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ka fog yahay ilaahana ka fogeeyay subhanahu wa ta'ala oo ka bari yeelay maxay yeelay maadadan ugu horeyso القمل يخلق من عرق الإنسان ووسخ جلده رسولك صلى الله عليه وسلم إساق أحاديث فربضانكو أماني أو يري النظافة شطر الإيمان نظافة وشطر الإيمان خلقك إلهي أبورنا إساق أقول نظافة بدنا إساق أنا أمر جري رسولك صلى الله عليه وسلم تاسي مركز سورة قلمها إن وسخ أهان
xaggeeda qamligu uu uga yimaado rasuulka sala allahu calayh wasalam dabeecadda rasuulkana sala allahu calayh wasalam inta dabeecadaha rasuulka sala allahu calayh wasalam la daraasaynayey qof tilmaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeecadiisa ku soo dartay waa طabiiciyu lqamli ma jirto ilahayna ka beri yeelay dabeecadiisa inay dabeeca qamliya noqoto oo injir ay noqoto dabeecadooda maxaa yeele dabeeca qamliya qofka marka leeyahay qaabkiisa ilaahay buu abuuray 100 goor hadduu qubaysto 100 goor uu isnadaafiyo bahashu ka harmayso waa dabeecadiisa qof intaas nabiga ku sheegtana sala allahu calayh wasalam ma aysan jirin markii luqa ahaan loo soo laabto ereygan taflii ereyga taflii dhowr luquu ku yimaadaa wuxuu ku yimaadaa taflii fulaanun falaa ra'sa fulaanin bimacnaa mashada waa u shanleeyey waa ku yimaadaa isaga naftiisa waxaan ku soo marnay kitaab ulxaj tafliidii oo ku imaanaysa bimacnaa tusarix way shanlaynay ku imaanaysa waxaan ku soo marnay kitaab ulxaj waa saxaabigii abu muusa alashcari falad ra'si riwaayo kalena waxay ahayd famashadatnii laba riwaayo isku xigtaan ku soo marnay famashadatnii iyo falad ra'si islaantii madaxaygii shanlaysay riwaayada kale fasiraysay waxay ahayd famashadatnii marka mashdiga iyo shanlayntaas ereygu ku yimaadaa wuxuu kale ku yimaadaa ereygan tafli ra'sahu bimacnaa yabxathu ra'sahu can ilqamli wa naxwi madaxiisa wuxuu ka raadinaa ama uu ka baaraa injir iyo wixii la miduhu ka baaraa macnahaasna waa ku timaadaa luqa ahaan laakiin ereygan markii la yidhaaho tafli ra'sahu oo tafliiba uu joogo awsaafta iyo tilmaamaha rasuulkeena markuu joogo sala allahu calayh wasalam waxa macnahaas ka leexinaya qaraa'in sharciya oo fara badan ee adilo fara badana ka leexinaysa oo ah nabiga dabeecadiisa sala allahu calayh wasalam inaysan sidaa ahayn in nabiga sala allahu calayh wasalam shacarkiisa ay ahayd tinta midda ugu uduga badan caraqa rasuulkuna sala allahu calayh wasalam uba ka samaysnaaba dib iyo udug uu ka samaysnaa dhididka rasuulka sala allahu calayh wasalam adiladaas kaloo la muqaaraneeyo ayaa waxay ku xayiree ereygan tafli in lagu fasiro bimacnaa tusarix wa tamshid waa u shanlaynaysay kaasaa ku xayiraysa adilada kale markii loo muqaaraneeyo midda kale a'immada sharxay ereygan tafli ra'sa maalan markaan soo qaadanno culamaa usiyar culimmada siirada yani nabigeena sala allahu calayh wasalam ka hadashay kitaabkan la yidhaha ashamaa'il oo shamaa'ilka rasuulka sala allahu calayh wasalam looga hadlo sharaxan baajuuri uu sharxay markuu sharxayey ereygan taflii erey la mida wa kaana yaflii thawbahu ereygaasuu sharxay wa kaana yaflii thawbahu rasuulkana sala allahu calayh wasalam maradiisuu baari jiray ereygaa yafli wuxuu leeyahay baajuuri markuu sharxayey laa yukhraju minhu qamlun rasuulka sala allahu calayh wasalam marna lagama soo saari jirin injir lagama soo saari jirin lianna asla alqamli injirta asalkeedu min alcufuuna baajuuri wuxuu leeyahy waxay ka dhalataa cufuunada waa sida hadda jaaxid uu sheegaya oo kale wasakhda iyo qurunka ayay ka dhalataa waman qaala ina fiihi qamlan qofkii yidhaaha rasuulka injiraa ku sugnayd sala allahu calayh wasalam kaana kaman naqasahu wuxuu noqonayaa qof nabiga nusqaamiyey maraatibtii ilaahay iyo mawaahibtii ilaahay u hibeeyana meel uga dhacay rasuulka sala allahu calayh wasalam saasuu noqonaa buu leeyay imaamu baajuuri oo isagu wuxuu xukumayba inay ka mid tahay yacni dadka nabiga nusqaaminaya sala allahu calayh wasalam ama haybadii nabiga sala allahu calayh wasalam mawaahibtii ilaahay uu siiyey qaybo ka mida doonaya inay dhaleeceeyaan inay asbaabta lagu dhaleecaynayo nabiga sala allahu calayh wasalam ay rabaan albaab inay u furaan waana sha'nigii munaafiqiinta nabigoo la dhaleeceeyo sala allahu calayh wasalam waa sha'nigii munaafiqiinta wey walidaalika alle subxaanahu wa tacaala hal kelimo oo markii dhinac loo fiiriyaba xataa wanaag u fasirmi lahayd ayuu ilaahay nahiyey subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina waquuluu ndurnaa laa taquuluu ha dhihinina raacina ficilka raacina markii la fiiriyo wuxuu ka yimid luqa ahaan min aricaaya oo bimacnaa yani xifdi ah shaygan in la xafido la ilaaliyo la xaq dhowro waa macno fiican oo saxiixa laakiin kelimadaas maadaama ilaahay uu arkay subxaanahu wa tacaala yahuuddu inay u adeegsanayaan wasiilo ay ku gaaraan aflagaadaynta nabiga sala allahu calayh wasalam maxaa yeele luqadda yahuudda kelimadan raacina waxay u yaqaanaan doqonkiiyow ay u yaqaanaan kelimadii luqa ahaan saxiixay ku tahay laakiin waxaa dhici karta kelimadan in wasiilo dadka qaar ay uga dhigtaan nabiga inay ku aflagaadeeyaan sala allahu calayh wasalam saas awgeed ilaahay waa joojiye o ilaahay wuu xarimo wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا انظرنا كبدشة انظرنا كلمة كبدشة راعنا هدهن نور الله سبحانه وتعالى وهكذا جري دولك مصر هذا كور وحكى عدي قضية waxay dhacday qarnigii sagaalaad iyo qarnigii tobanaad intii u dhaxaysay qadiyadaas xilligaas waxa noolaa Imam Suyuudi rahimahullahu ta'ala waliba sheekadaasna kitaabu ka qoray Suyuudi rahimahullahu ta'ala qadiyadaas waxay ahayd laba nin masaajidka hortiisa masjid weyn oo Masar ku yeelay ay isku aflagaadeen masaajidka hortiisa sida isku aflagaadeen isku caayeen mid wuxuu yiri midkii kale idhab fa anta raaci al-ghanam أرادوا أن يتقوا إلى هاي كي كلا سوبه وحير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راعي الغنم ما راعي الغنم أنا يدينا رسولك راعي الغنم وها أنا يسوق إلى جري رسولك صلى الله عليه وسلم كلمة أسمر كلا فيريو راعي الغنم رسولك صلى الله عليه وسلم كتب السير وحي كتب المامي جميع الأنبياء إن أري إلى جري وإلهي سبحانه وتعالى وقلت لقلي habka tarbiyada iyo asaaliibta tarbiyada in Ilaahay ku baro iyo dulqaadka iyo sabarka Ilaahay uu ku baro anbiyada laakiin maca dalika qadiyadii maxkamadii loo soo kor yeelay leeyahay xilligaas jirtay Imam Suyuudi maxkamadii ninkii waxa lagu qoray in la tacsiiriyo ninkii kelimadaas yiri maxaa yeelay kelimadu run baa noqoto laakiin usluubka loo adeegsaday khaldan usluubka iyo maqaamka loo adeegsaday maqaam khaldan maqaamka loo adeegsaday maxay tahay waa nin caaydiisi difaacay عايديسي وحور ربا إنه يسكت دفاعه لي هذا يعني نبي قبل راعي الغنم وها هذا عاي قد جيس مركز الدفاع عرض جيس والدفاعي وحو كدك توصيله وكجاره إنه كلمة النسبة رسولك صلى الله عليه وسلم ساس أوجد إمام السيود رحمه الله تعالى قضية سو كتاب كقري ليرا تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء وكتاب مطبوعة والله طابعي وكل إحدى طابعيه كتاب كان الحاوي للفتاوى وسيود وسكليه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء رسالة كقري ومركا أوليه هاي شيء وحوليه هاي هدو حتى سيرادة كمدي هاي أو حق ويهي هذه بعض العوام سخل دان أي دعي كرتو إني أفهمان أما سخل دان إني أديك سدان أي دعي كرتو وحرام وليه هاي إن لقى الشيء رسولك صلى الله عليه وسلم أريقاسنا الله نسبه كلمة دي واصح راعي الغنم لكن هذا واحد دعي كرتو عوامك مجتمع هذا اللي جوجو هي حالة هذا اللي جوجي بيئة هذا اللي قلنا ليه هاي واحد نقطة كلمة ذميئة ولا يسوى أفلقادين نقطة مركب غفك مركب دراسين أيو كتب السير ودراسين أيو هكو بح دراسي وتربية يا أساليب إلهي سبحانه وتعالى أنبياء وقول تلقى هكو شيء موضوعهان هكو شيء لكن إنه مال استاجوا مركب سورة ذم إيو سورة الدفاع عن عرضه إيو أو يراه راعي الغنم بالنبي قواها صلى الله عليه وسلم وحين نغني سوء الأدب سوء الأدب النقنة ورسوله صلى الله عليه وسلم ميل لوغا داعي وكلمة يعني واضحة أو سير كوران أي قريان محاد لينا كلمة يعني كتاب إلهي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه أئمدي وويد مت كمدبا أن ولقود لقى مقلين والنبي إنجيل الله نسبية صلى الله عليه وسلم محاد لينا وحل الديدة أي كلمات إسكت توصن أي الديدة أي كتبتي أي قريان waxaana loo diidayay in dadka qaarkood wasiilo ay uga dhigtaan ama ay ku gaaraan cirdiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka sidaas awgeed in nabiga sallallahu alayhi wasallam loo nisbeeyo ama loo aaneeyo injir iyo wax lamida waxay meel ka dhacay ku tahay shariicada islaamka qofkaasna waxa uu haboon maqaaladaas yiri inuu ilaahay u toobad keeno subhanahu wa ta'ala ilaahay uga laabto kelimada sideedana markii jaanib mar walba la fiirinayo shariicada kalama maaranto shariicada waxa la yiraahdaa shariicatu yakhdimu ba'daha ba'dan ka a'daa'i al-insan shariicadu waxa la yiraahdaa waa isku khidmaysaa waa isku adeegtaa sida xibnaha bini aadamka aysan u kala maarmin xibnaha bini aadamka saysan u kala maarmin waxa way suulkaas waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala faraha uu ugu lamaanayay oo suulka ilaahay uu noogu abuuray waxa way farahaasi kama maarmi karaan suulka marka wax la qabanayo marka wax la soo qaadayo kama maarmaya itaalu siina suulkaas itaalu siina madalika waxa way culimada usul fiqhiga waxay leeyihiin الشريعة كأعضاء الإنسان يخدم بعضها بعضا شريعة waxa way waa xibnaha bini aadamka oo kale xibnaha bini aadamka saysan u kala maarmin shariicada marka hal cudwi ama hal jaanib oo kale ama hal daraf oo kale qof intuu dul istaago ma dhihi karo xukun sharciyan ka qaadana ila adilla fara badan uu soo akhriyo adilla fara badan uu soo muqaaranayo marka waxa rabaa wax yar waxyaalaha hadda ninkaas yaani nabiga sallallahu alayhi wasallam injirta u nisbeeyay
waxyaalaha uu deliishaday waxaa ka mid ah hadda sharaxan hadda imaamu nawowi meeshan aan dul taagannahay uu deliishaday qowluhu tafli sheekh markuu meeshaa sharxayay nawowi raximah allahu tacaala qowluhu tafli bifatxi taa wa iskaani ilfaa wuxuu yidhi sheekhu fiihi jawaazu falyi linsaan insaankii in madaxiisii la baaro ayaa ku sugan ay bannaan tahay wa qatlu lqamli minhu injirtana insaanka laga dili karo ay bannaan tahay wa min gayrihi madaxa kayrkiisana laga dili karo injirta taasaa ku sugan uu leeyahay hadalkaas marka shubha wuxuu ka dhigtay uu leeyahay imaamu nawowiyaaba sheegay in nabigu injir leeyahay sala allahu calayh wasalam sheekh nawowiyaaba sheegay uu meeshan mulaaxada ahaan ama shubha ahaan ugu dul istaagay laakiin meelahan oo kale sideedaba waxaa jira wajhu dilaala qaabka kelimadu ay ku tusinayso xukunka naftiisa ayaa wuxuu u baahan yahay inuu qofku uu baaro oo uu baxtiyo maxaa yeele waxaa jira waxyaalo rasuulka sala allahu calayhi wasalam yacni daahirkooda markii la fiiriyo shareecadu ay isaga nisbaynayso ama aqwaalulculamaa ay u nisbaynayaan laakiin haddana nabiga aan loola jeedin sala allahu calayh wasalam lidaalika adkaarta iyo dacwaadka nabiga waxaa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam allaahumma innii acuudu bika min shari nafsi ducada nabigay ka mid ahayd sala allahu calayh wasalam allaahumma innii acuudu bika min shari nafsi ilaahu naftayda sharteedaan kaa magan galaa culimmadu markay meeshaa sharxayaan waxay leeyihiin fiihi alisticaadatu min shari nafsika fii kulli sabaaxin wa masaa waxaa xadiiskan laga qaadanaa in nafsadaada sharteeda aad ilaahay ka magan gasho subax walba iyo galab walba maadaama nafsadaadu ay shar leedahay culimmadu markay xadiidkaas sidaa ku sharxaan